Assalaamu calaykum. Qabsashada Shiinaha ee dhaqaalaha dunida ma siyaasad mise dagaal aan habad lahayn? Adduunka maanta waxaan aragnaa dagaal cusub oo aan lahayn rasaas, balse leh awood ka weyn midda hubka nukliyeerka. Waa dagaal dhaqaale. Shiinaha oo muddo aan fogeyn ahaa dal sabool ah ayaa maanta dunida oo dhan ku qabsaday badeecooyin, tiknoolajiyo iyo siyaasado dhaqaale oo si xeel dheer ah loo qorsheeyay. Su'aashu waa, Shiinaha ma ku socdaa inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee dunida, mise wuxuu bilaabay dagaal dhaqaale oo aan habad lahayn balse burburin kara nidaamka caalamiga ah? Koritaanka Shiinaha 40 sano ka hor, Shiinaha wuxuu ahaa dal dadka badankiisu sabool yihiin, waxbarashadu dadku ay daciif tahay, laakiin hogaamiyihii weynaa Deng Xiaoping ayaa 1978kii ku dhawaaqay isbeddel weyn oo taariikhda dunida beddelay. Wuxuu yidhi, dal aan furnayn waa dal sabool ahaan doono. U fiirso, dal aan furnayn oo xirxiran waad qiyaasi kartaa. Wuxuuna bilaabay dib u habayn dhaqaale oo xooggan, warshado jaban oo soo saara badeecooyin qiimo hoose leh, shaqaale badan oo mushaar yar ku shaqeeya, badeecooyin raqiis ah oo caalamka qabsaday. Maanta Shiinaha waxaa loogu yeeraa warshadda caalamka sababtoo ah qiyaastii wax kasta oo aad taabanayso waa made in China. Belt and Road Initiative sanadkii 2013, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu bilaabay mashruuc weyn oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative. Mashruucan wuxuu isku dayayaa inuu isku xiro Aasiya, Afrika iyo Yurub iyadoo loo marayo waddooyin cusub, dekedo caalami ah, tareenno xawaare sare leh, kaabayaal dhaqaale oo malaayiin dollar ah. Laakiin dhaleecayntu waxay tahay dalal badan oo mashruucan qayb ka noqday waxay ku dhaceen deen culus, taasoo dadka qaar ugu yeereen diblomaasiyadda deynta. Halkaasna waxaa ka muuqata xeeladda Shiinaha. Ma ahan oo keliya inuu caawinayo, balse wuxuu rabaa inuu gacanta ku dhigo ilaha dhaqaale iyo istiraatiijiyadda dalalkaas. Tartanka USA iyo Shiinaha, halkaas ayaa dagaalka weyn ka bilowda. USA iyo Shiinaha. USA waa awoodda dhaqaale ee ugu weyn dunida, balse Shiinaha ayaa si degdeg ah ugu soo dhowaanaya. Tartanka ugu weyn wuxuu ka jiraa tiknoolajiyadda, Huawei, TikTok iyo horumarka artificial intelligence ayaa Shiinaha ka dhigay tartame halis ah. USA waxay xayiraad ku soo rogtay shirkadaha Shiinaha, waxayna isku dayday inay ka hor istaagto suuqa tiknoolajiyadda. Dhanka kale, Shiinaha wuxuu isku dayayaa inuu la xulufo Russia, Iran iyo dalalka kale oo ka soo horjeeda reer galbeedka. Tani waxay abuuraysaa dagaal cusub oo loo yaqaano Cold War II. Haddaan si kale u dhigno, Part 2 dagaalkii gaboobaa. Laakiin markaan u fiirso daawade, hubka lagu dagaalamayo waa dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda, ma ahan rasaas. Saamaynta dalalka yaryar, dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya waxay Shiinaha ka helayaan maalgelin, kaabayaal dhaqaale, waddooyin iyo dekedo cusub. Laakiin qaar badan waxay ku dambeeyeen deymo aan la bixin karin. Tusaale ahaan, Sri Lanka waxay ku qasbanaatay inay Shiinaha u dhiibto deked muhiim ah muddo 99 sano ah. Afrika, dalal badan waxay heleen waddooyin iyo isbitaalyo cusub, balse sidoo kale waxay noqdeen kuwo ku tiirsan Beijing. Su'aashu waa, Shiinaha ma caawinayaa mise wuu qabsanayaa? Ugu dambayn, Shiinaha maanta waa awood dhaqaale, siyaasadeed iyo istiraatiiji ah oo aan la iska indho tiri karin. Dagaalka cusub ee dunida socdo
ma ahan mid rasaas lagu furayo ee waa mid dhaqaalaha iyo saamaynta lagu qabsanayo. Mustaqbalka waxaa la isweydiinayaa, qarnigan 21aad ma noqon doonaa qarnigii Shiinaha? Iyo haddii ay taasi dhacdo, dunida sidee ayay isu beddeli doontaa?